waxaan halkan baa ku dirnaa dhamaanteen xukuumadda oo dhan iyo gudoomiyaha golaha wakiiladuba walaalaha isku dilaaya koonfurta bari ee Sool magaalada Qoriile dagaalkaas dagaal loo baahayay maaha dad badan oo ku dhintay sanado badan uu socday saddex dal uu saameeya innaga Somaliland iyo Soomaaliya iyo Ethiopia uu sameeya waa halkay saddex xad isku yimaadaan waxaanu baa qudranaa dadka walaalaha halkaas ku dilaaya in aqligu shaqeeyo oo aanu dil waxba korin muddo ka badan san la sheegay 10 sano oo dalkaas socda oo kolba intuu dabaha daba soo horaya kol walba ugu yaraan 10 20 intaas qof baa ku dhintay intaas ku dhaawacantay sabab ay muslaa dagaalka xiiqda dheer isugu dhimano oo dadkaas u dhintaan garan maayo wixii muslina iyo Soomaali ah ee wax garan waxa leeyahay arinta laga gulmado oo dadka isdilaaya waa dad Soomaaliyeed waa Somaliland waa Soomaaliya waa kila shaqada Ethiopia waa isku family uun xadka ku badan talaaba iyo muslimiinta in loo gulmado arinta xal laga garo waara oo lagu dabiyo ayaan baqaa mudareynaa wax garadka saddex dawladood ay saameysaba diyaar baan u qaybteena nabadda ka qaadano oo ay Soomaaliland nabadda hogaamisa waxa kale oo maanta halkan iyo dhibaatooyin ka dhacday wajaale xaafad baa gubatay dan yara waliba oo intii dan yarta ahayda 7 guriye ka badan wixii xoolo hoos yaallay waa gubteen oo waa shaqeeyaan nasiib wanaag halka cid ku dhiman isla maanta tobankii guri gabadhi ku yaal ayuu doo qabsaday hooyadan la ka tagtay carruurtii guriga kaga tagtay shan bay ahaayeen mid baa ku dhintay gubtay kala ka baxay inta waa tacsiideena waxaan ugu mahadnaqaynaa dabdabiska Somaliland oo Hargeysa boorba ka gurmaday saddex habeen waxaan u mahadnaqaynaa ciidanka booliiska oo aan soo aabay ilaa taliyahooda waa barigii wax gaaray dadka gobolkii u horeeyay ee ka baxay Hargeysa oo taliyahooda Gabriel Fadal iyo Bermadkii iyo dabdabiskii iyo kuwii boorba u dhawaa iyo kuwii Gabriel mar isbiilka ugu badan ku gaaray meeshii waxa gacan weysay dadka wajaala degan isagoo camad shaqeeyay saar magaalada ku badbaaday oo magaalada intii weyneed looga gaaray dabka oo dadku iska xidhay darbi ka noqdeen mid baaldi sida mid gaariga jiida mid alaab ka gura sida la sheegay waxa in yar dabku ku tirsan bakhaar ay ka buuxaan nafta iyo petrol oo gacmaha ka gureen afartii shantii abada meelaha laga saaray shaqeeyo oladana wax bareeyna in gurmadka iyo fajiraanta ay raahno